Abaarta ku dhufatay guud ahaan dalka ayaa sababtay in dad fara badan ka soo qaxaan dhulka miyiga, isla markaana maciin bidaan meel ay ka helaan biyo iyo wax ay ku noolaadaan. Qoysaskan ka soo hayaamay dhibaatooyinka la xiriira abaarta ayaa soo gaaray magaalada Baardheere. Dadka ka yimaada dhulka miyiga ayaa noo sheegtay in caqabadaha abaarta gaarsiisay heer dadka xitaa ay leedaan. Tani ayaa ku qasabtay inay naftooda la aadaan magaalooyinka. annaga dee barakac baane meeshaan ku soo barakacnay sida meel yar aniga imaan naftay sidaan u imaanin 30 bariyaan joognaa wax noo qabtana ma arkin dad baan ku dulnoolnahay waxaan xoolayn waa naga dhamaadeen ilmaha naga iyo dadka naga waxaan la imaadeen ilmaha naga marka kaan tawakkalan kusoo kordhin maxaad codsanaysaan marka dadka jaalidyaha wax aan haysnaba ma laha guri aan haysanin wax la cunaan haysanin biyaan haysanin waxaan haysanaba ma laha dadka jaalidyaha marka islaamka maxaad ka codsanaysaan cosaanka wax dheef iyo wax tar wax kasta aan ka codsanaynaa guri iyo baad la cunay wax kasta waa ka baahan dhanka kale barakacayaasha ayaa baaq u diray dowladda iyo hay'adaha kala duwan ee gargaarka in ay soo gaaraan isla markaana la soo gaaraan muslim oo dhan meel uu joogo dhan caawimaad baan ka rabnaa gargaar baan ka rabnaa bishaan 30 meesh lagu gargaar hadaan la helin dad badan baa meeydi waa lagu hubaa dad badan inuu meeydi gargaar baan ka rabnaa dowladdan ka rabnaa hay'adahan ka rabnaa Soomaaliya meel kasta oo ay joogaan waxaad nooga warantaa dadka kaamka ku soo kordhay meelay ka kala imaadeen waxay ka imaadeen dadkaas sidima Fafadhuun meel la yiraahaa Buurmadow Emil meel la yiraahaa sidima ilaa Reydab urqaad meel la yiraahaa oo lagu baqtiyay oo dadkii ilaa 4 iyo 5 qof ku dhinteen halkaas laga soo baxay wax ilaahay oo dunyada la imaadeen ma jiraan hadda marka waxaad ka codsanaysaan jaalidyaha islaamka jaalidyaha maxaan ka codsanaynaa gargaar degdeg ilaahay wax deeqay ilaahay gacantiisa lagu dhargaay degdeg inuu gurmad lala soo gaaro kan tawakkal waxaan nahay barakac baan nahay waxaan ka nimid degmada waxaan ka nimid Sadiimo waxaan ku soo kordhanay kaamka tawakkal waxaan rabnaa jaaridaha iyo hay'adaha maxalliga waxaan ka codsanaynaa in oo wax naloo qabto dadka hadii anaga dad islaam oo ii sheegay hadii xoolaha dhaafeen oo hadana dad ku soo kordhay baan nahay wax naloo qabtaan rabnaa arintaas